السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال سو دوادا ومركلي يو انيغي ده ومركلي كلنكني حدا iyo Suleekha Cabdullaahi ku soo dhawaada barnaamij xiiso badan siina sheer gareeya Mustafa Cilmi adan ku salaamay walaal waan ka qaaday salaanta soo dhawow barnaamijka noo sheer gareeya maanta sidaan kor ku soo qoray waxyaabo fara badan ba ka hadli doona muddo dheer ba suuqeen dambeysay waan yar mashquulay shaqo iyo imtixaanaad iyo wax baan lahaa marka wixii dhacayay toddobaadyadaas oo dhan baan rabaa maanta inaan soo koobo inaga dabageeyo marka maama waad baan ku soo dhaweynayaa deeqa waa maxar aad waalaikum salaam walaal aad baan kaaga qaaday aadna ku soo dhaweynaya barnaamijka inoo sheer gareeya waxaan rabaa maanta wax badan inaynu ka wada hadallo subaxad xasan aadan ban in yar inoogu tuuraya mise lama jecela xasan aadan dadku waxay yiraahdeen heesaha naga daa heeso ma fiicna dadka qaarna waxay dhaan waa inoogu tuur marka dhinaca loo bato ma fiirinaya teeda kale heestu markay noqoto hees wadaniya sideedaba dadka dhan way dhageystaan heesaha wadaniga soo ma inta wadaniyiinta way dhageysataa okay waan inoo daaraya marka xasan aadan iyo heesta 2018ka gamima ya warde gamiyay weliga nolosha gabaho أحمد أدن كوسو دوينيا آدي أد بندمانتي ندين ودا سلامة يا سعيد يوسف ورسمة وانكا قاد ولا أدن كوسو دوينيا نسيدو كاله دمان أصحابتها لكانيga salaamaysa ma wada koobi karo way dhaafay qoraalkii intii badnayd Yaasmiin aad baan walaalkaaga qaaday waan ku soo dhaweynaya dhamaan asxaabtaadii aad baan idin soo dhaweynaya maanta halkan waxaan ku casuumay kaliya asxaabta jecel nabad iyo nolol wixii diidan hadaba waxa la dhiguna yuna idinku karnay meeshaas kaga baxa halkaas ma naga jeeda qayb soo qorqoraya
oo nabad iyo nolol diida wixii nabad iyo nolol diida caawa uma baahnin nabad iyo nolol soo dhawaada nabad iyo nolol sii sheer gareeya wax badan baan rabaa caawa inaan idinla wadaago qodobo dhowraan rabaa inaan idinla wadaago idinla sheer gareeyo kow nabad iyo nolol diidka iyo dad badan oo ku dabalumay waxaan kaloo rabaa inaan idinla wadaago maanta dad badan oo ku dabalumay nabad iyo nolol diid ama kooxaha daahir calasow iyo waxyaabaha ku kalifay siro yarar oo hoosaan idinka hayaa waxaan kaloo rabaa inaan idinla wadaago madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda nabad iyo nolol sidaa u shaqayso waxaan kaloo rabaa marka inaan ka daba tago beeno toddobaadyadii lasoo dhaafay intii aan mashquulka ahaa hawada laysla dhex marayay waxaasoo dhan waan isku soo wada koobi doonaa marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan in yar baan dib inoogu dhigaya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo sida ay u wada shaqeeyaan iyo xogo hoose oo aanadan badankiina ogeyn laakiinse aniga aan ogahay waxaan kaloo rabaa marka inaan ku hormaro nabad iyo nolol diid nabad iyo nolol yaa diidi kara halkaasa dhammaan dadku waxay usoo qorayaan nabad iyo nolol qof diidan nabad iyo nolol ma jiro qof kasta wuxuu doonayaa waa nabad iyo nolol laakiinse qofkii nabad iyo nolol diiday shaydaan baa duufsaday shaydaanka kuwa u duufsaday marka waxaan leenahay ilaahay horta shaydaanka ina iska naartaanba marka hore idinku boorinaynaa qofka hadduu shaydaanka iska naaro wax walba way u toosayaan laakiin hadduu shaydaanku wax fool xun uu qurux kaaga dhiga wax qurux badan baad moodaysaa waadna daba cararaysaa marka waxaan leeyahay dadka shaydaanku duufsaday dad badan baa wallaahi ku dabalumay run baan idiin sheegaya maanta waxaa rabaa halkan inaan ka xaqiijiyo runtii aniga ma jeceli dadka inaan dabagalo ama inaan qof wax uu isagu ka hadlay inaan ka daba hadlo hadday noqoto marka inaad maanta oo dhan qofbaa hebel baa sidan yidhi muxuu sidaa u yidhi hebel kalaa sidan yidhi muxuu sidaa adiga macno daraa kugu dhacayso waana wax runtii aad u baahan inaad adigu ogaato inaad ama isdifaacdo ama dad hadalkooda aad beenisaa waqtigoonba kaaga lumaya tusaale waxaa inoogu filan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo maanta dhan haddii wax la sheegayo maanta dhan haddii la caynayo maanta dhan haddii laga been abuuranayo maanta dhan wardad isku sheegaya madax ayaa intaa wax ka sheega oo caaya oo ka been abuurta ma u jawaabo mana la hadlo waayo shaqadiisa ma aha shaqadiisu maynu isdifaacaaba waa maya shaqadiisu waa inuu dalkan iyo dadkan u samato bixiyo oo uu wado wanaagsan iyo horumar uu u horseedo laakiin hadday noqoto qofbaa wax iga sheega waa inaan iska celiya qofbaa wax iga sheega waa inaan runta u sheega qofbaa wax iga sheega waa inaan xaqiijiya micno ma samaynayso nabad iyo nolol diidka waxyaabaha badana ay dowladda ku caayaan ku cambaareeyaan waxaa ka mid ah maxay uga hadli weyday waxaa maxay u hadlaysaa meesha shaqa u joogta hadal ma joogto dowladda marka waxaan rabaa maanta waxaasoo aan in badan ka aamusna inaan maanta waxyar ka idhaahdo waayo markaad aamusto beentii lagu celceliyo dad badan baa run moodaya waxyaabaha lagu celceliyay markay 2 toddobaad ee lasoo dhaafay aan hawada ku kala maqnayn aan arkayay oo marba isheedu ay qabanaysa waxaa ka mid ah dadaan macquul moodayay oo maanta macquul noqon waayay oo shabqiyadii shaydaan wasuusay ku dhacay dadaad idinku u taqaaneen dad magac leh inay yihiin oo shabqiyadii shaydaan wasuusay ku jira oo marka aan dabagal ku sameeyo raadiyay xaqiiqada soo ogaaday ay maanta iyagu ceeb dhex fadhiyaan oo wallaahi ummadii ay isku direen oo cid la'aan ay taagan yihiin oo qof taageeraya uusan jirin oo qof dhagaysanaya uusan jirin marka dadkaas waxaa ka mid ah Aamina Muuse Weheliye aniga waxa kama oran codkeedii intaan soo qaaday baan page-kayga soo galay waxaan ku dhahay maamada maxaa ku dhacay si xushmad leh ma caayin ma habaarin way qaldan tahay waa saxan tahay waxa ma oran qabiil bay caayaysay khaasatan ra-iisul wasaaraha qabiilkiisa caayaysay marka qabiil markaan anigu wax ka sheegayo waxaan wax ka sheegay aniga ayaa wax iska sheegay aniga ayaa iscaayay markaan qabiil caayo wax ka sheegayo ma rabo marka Aamina hadalkeedii inaan sii falanqeeyo oo aan ku dheeraado laakiin waxaan rabaa hadalka beenta ah ee ay dadka u sheegayso inaan beeniyo buriyo hadalka beenta ay dadka u sheegayso aan rabo inaan buriyo waxay tahay horta kow waxay tiri ra-iisul wasaaraha qabiilkiisa igu soo dudaday aniga qabiilka ugu soo dudaday wax kale waxba igama gelin ummadda Soomaaliyeed baa ra-iisul wasaaraha jecel haddii ummadii Soomaaliyeed kugu kacday micnaheeda ma aha qabiilkii ra-iisul wasaaraha kugu kacay laakiin ummadii Soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha jecel aniga kowa ka aha waa kugu kacaya ha waayo aniga dawladda waan taageera qof kasta oo wax wanaagsan qabtana waan taageera
dawlad markaan leeyahay dawladi waa dad isu tegay oo cid walba leh ra'iisul wasaare madaxweyne baarlamaan wasiiro intaas qof kasta wax wanaagsan qabtaa wuu iiga duwan yahay kuwa kale wasiirada waan kala aqaanaa yaa waxii qabtay yaan waxii qaban kii waxii qabtay iyo kii kale waan kala garanaya qabiilkiisana wax iga galay ma laha laakiin waan ammaanaya markuu wax wanaagsan qabto si uu talaabada u laba jibaaro oo wax intii hore ka badan uu iigu qabto marka qabiilka ra'iisul wasaaraha caay horta inaad tiraahdo waa ku qaldan tahay ra'iisul wasaaraha qabiilkiisa ku jira honeymoon ama waxay galeen toddobabax ku jira inaad tirahdana waad ku qaldan tahay marraba marka taa inaan ku fogaado wax badan ka odhan maayo adiga un ayaa isku ceebeeyey oo bulshadii kaga dhex baxay waxaad ku ogaanaysaa dadka aad leedahay way ugu kaceen mahamud ra'iisul wasaaraha qabiilkiisa waa Soomaali oo aan anigu ku jiro waana kugu kacaya qof wanaagsan oo wax wanaagsan ii qabtay qofkii ku xadgudbo waan ku kacaya hadalkaan u socdaa wuxuu yahay marka waxay tiri qabiilka waxaad ka sheegtay horta adiga iyo ilaahay iyo ummadaas aad falgaadaysay ayuu idin dhex yaalaa idinmana dhex galayo laakiinse hadalka aad tiri xafiiska ra'iisul wasaaraha intuu ila soo xariiray ayaa wixii ugu dhahay $200 mise bawn bay tiri 300 wax noocaasa inoogu shaqee waan kaa diiday waayo haddaad rabto inaad run sheegto waxaad noo keeni lahayd wax cad marka lagula soo hadlayo telefoon baa lagugula hadlayay corruption cad inay taad u jeeday waa data qof dalkiisa iyo dadkiisa ka nacayo daadan adigu lacagta doonan inuu raadsanin sidaan anigu soo wado iminka hadalan soo wadaaba noocaas waa lagu soo wacay waxa lagu yiri lacag noogu shaqee okay lacag noogu shaqee markii lagu yiri mobile bad ku hadlaysay casri baa la joogaa codka maxaad u duubi weyday oo notice weyday oo dhan weyday waa tana iyadoo layla soo hadlay ama waa kana qoraalkii la soo qoray oo lagu yiri lacagtaas noogu shaqee been cad inaad sheegayso waxa tiri dadka amaana dawladda lacag baa la siiyaa Soomaali Maxamed baa amaanaysa lacagta Soomaali Maxamed xagee looga keenaa mideeda kale hadii anaga lacagna la siinayo IMF marka intixaamaysay dawladda lacagta anagana la siinayo waa lagu la xisaabtamay waxa la oran lahaa lacagtaas aad ku qasaaraysan dad idin taageera lacagtaasi waa corruption waayo ma aha dad dawladda ugu shaqeeya Soomad garan marka dad baa lacag la siiyaa marka adiga horta waad is diltay oo istoogatay oo dhulka baad isgelisay dad badan baan arkay oo iska ka daba toogtay runtii waxa ku jira ninaan falanqayntiisa siyaasadda aad u jeclaay aad u taageeri jiray Ali Xarre la yiraahdo Ali Xarre wuxuu iska ahaa nin dhexdhexaad ah wuxuu ahaa nin siyaasadda maalinba meesha ka qalloocdo ka kaftama waa wax caadi ah taas dadka dhan baa kugu jeclaa dadka dhan baa kugu taageeri jiray maanta waxaan arkay adiga oo hadalkii Aamina Muuse weheliye ka daba qaatay Ali Xarre adoo hadalkii Aamina Muuse weheliye ka daba qaatay oo dad raacay sidii si lamidun bay maradu kaaga dhacaysaa dadkii daawan jiray kaftankaaga siyaasadana ogow maanta inay kuugu dambayso kaligaana ma aha wallahi waxaan u sheegayaa dadka hore isugu sheegi jiray dad magac leh inay yihiin dad wariyayaal inay yihiin hadii ay ra'iisul wasaaraha ku khaldamaan ra'iisul wasaaraha maanta haddaan halka ku soo qoro iyo shakhsi kale keeba taageeraysan 100,000 oo qof ba isla markiiba waxa laga yaabaa in ra'iisul wasaaraha uu codeyso ma aha qabiilkiisa waa Soomaali Maxamed weeyaan waa Soomaali Maxamed haddaad marka aad ka been abuurato oo aad tiraahdo xafiiskiisa dad lagu shaqaalaysiyo si dawladda loogu ammaano ogow ummadii Soomaaliyeed iyo adigu inaad kala dhimateen annaga ayaa cadaynayna waxa tiri Ali Xarre maanta dad soo tahriibay buu yiri oo aan waxba garanaynin dad soo tahriibay oo aan waxba garanaynin ayaa propagandaha beenta dawladda u fidiya adigu wad soo tahriibtay aniguna waan soo tahriibay oo ma diidani Aamina Muuse way tahriibtay ama ku gal dal qurba aqooti ama ku gal bug ama ku gal baasaboor dad kale ama ku gal isxambaar iyo sponsor wax kasta ama badamar tahriib qurba waxaan tahriibayn lagu yimaado ama sponsor lagu keeno adiga ama hay'ad quxunta ku soo qaado adiga ama meel kale laga soo qaado waa ciyaalkii buu yiri ku xirnaan jiray maxaa la dhahaa in Liibiya ku xirnaan jiray ciyaalka Liibiya ku xirnaan jiray adigu maxaad isdhaantaan adiga ba quxunti baad ku tahay Mareykanka anigana sidaas la mid ah quxunti baan ku ahay Mareykanka ya kabana isma dheerin other full time baan shaqeeya full time glassna waanaada Soomaaliya maanta aniga waxa waajib ugu ah askarta sharafta iyo karaamada maanta ummadda Soomaaliyeed u soo hoysay mushaharka aan qaato $10 inaan bil walba isaga gooyo oo aan ku diro akoonka dawladda
halkana aanu la taagnaado taageeradooda iyo ammaantooda laakiinse beentiina aan maanta soo ogaaday aan rabo inaan maanta dadka kunka qof ku dhaweey daawanayaan u sheego waxay tahay aamina muuse intay maqashay hadalkii daahir cali soowayaha dad baa lacag ay siisaa dawladdu ayay dhug xafiiskii ra'iisul wasaaraha garaacday waxay tiri aniga ka caansan dadkan aniga ka magac dheer dadkan aniga BBC u shaqayn jiray aniga la yaqaana aniga ay ahayd inaad siisan lacagta dadka ku siisaan anagu cid lacag lama siinaa leeyahay hadaa dawladdaada iyo dalkaaga aad free ugu shaqaynayso aad free fikir ku siinayso aad free ku taageerayso aad free wixii runa ku sheegayso welcome hadii kale goodbye markaasay propaganda iyo been la soo istaagtay Facebook iyo groupkii daahir cali soo ay ku biirto laakiin marada ka dhacday waxa maysan helin marada un baa iska riday cali xarle maanta wadadii uu hayay asagana wallahi kaftankaaga siyaasadda dadkii daawan jiray waanu fiirsaday waana qiimeeyay tiradii dadku daawan jirtay isla markiiba cid ku cayda iyo cid ka baxda mooyaan wax kale waad weyday waayo Soomaali ayadaa jecel nabad iyo nolol iyagaana ka jecel nabad iyo nolol laakiin wixii nabad iyo nolol diida ee jidka nabad iyo nolol ka leexda ogow ummadda Soomaaliyeed oo dhan inay ka hayso oo ay necbaanayso marka dadka isku sheegaya magac baan leenahay BBC baan u shaqayn jirnay war BBC waa ta Soomaali halka dhigtay weeye BBC waa midda Soomaali madaxa isu gelisay maanta inta xafiiska ra'iisul wasaaraha inta wacdeen baa waxa leedihiin ciyaal yar oo tahriibay oo maalto ku xidhnaan jiray ayaad siisan lacago qaalub balaaba garanaynin anaga lacagtana si anaga u qalanay anaga ahaan jirnay wareeyal khatar ah anaga ayaa ka soo shaqayn jirnay idaacada hebele anaga ayaana la garanayaa na la dhageysanaya anaga sidan ah hana la siiyo lacag laadin ma siinaya la yiri nama siinaysan soo maaha waayahay ween propaganda iyo been idin gelina hawada idinka ayaa is ceebeeyay ilaahayna wuu og yahay anagana waan is ognahay dawladana waynu ogtahay shilin qof la siiyo inuusan dawladda amaanin shilin annaga inaan shilinkeena ku taageerno diyaaro ah annaga ayaa shilinkeena inaan ku taageerno diyaaro ah annaga ayaa ciidanka maanta sharafteena kor u qaadaya iyagoo aanan mushahar qaadanaynin diyaaro am mushaharkeena inaan shilin uga goyno kii aan mushahar qaadan Soomaha kii aan shaqayn Soomaha kii meel qaxootiga shooga Soomaha kii niyadda un ka taageersan Soomaha wixii fikra iyo wixii ra'yi iyo wixii hadala iyo wixii tala oo uu siin karo free bu ku siinaya kii lacag ugu dari karaana wuu ugu daraya laakiinse waraabayaasha soo baxay ilma BBC cali xariya amina muuse weheliye waraabayaal baad noqoteen Soomaalina waad ka dhimateen idinkaana is ceebeeyay xukuumadda nabad iyo nolol inaad maanta propaganda ka faafisaan saqiirka laba jirka ayaa garanaya beenta aad ka sheegaysaan iyo inaysan musuq iyo laaluush midna qaadan maanta dad qof ku tiraahdo maxaad u aragtaa ra'iisul wasaaraha والله بالله بيندين مشيغي ما ندود ويل Soomaaliyan meelkooda shaqeynayna waxaan ku oray wuxuu adigu ayaamii dhawada siyaasaddu aad u cakarneed bay ahayd mooshinka iyo waxyaabahaas socdeen wallahi billahi waa ku wareeray buu ra'iisul wasaaraha haye maxaa ku wareertan ku maxaa ku aragtay ma garanayo ma waxaas leedahay waa nin musuq maasuq anoo si caadi ah waraysanay ima yaqaan anigu ma aqaan meel baan ku kulanay ma waxaad u malaynaysaa inuu yahay nin musuq maasuq oo yaani dalkan inuu u soo shaqo tagay sidii aan uga aragnay siyaasiyiin hore ma saasaad u malaynaysaa wallahi ma aha nin lacag qaata okay waayahay ma waxa u malaynaysaa inuu yahay nin dana shisheeye iyo dalal shisheeye u shaqeeyo oo dalka khiyaamay wallahi ma khiyaamo anigu kuma garanayo kuma arkin hada waayahay maxaa ku haysataa oo as leedahay ma fahmin maxaa walaad ma aqaan waa ku wareeray ma fahmo siyaasadiis marka ma inaad taageerto oo wax wanaagsan uu sameeynaya ayaa kula gudboon mise inaad tiraado waxaas ku qalday wallahi wuxuu ku qaldan yahay ma garanayo hadda marka maxaad ku diidaysaa dadkiina diidan marka waxaad ku diidaan sababtoo ah reer hebel buu yahay aamina muuse heliyana cadaysay sababtoo ah waa reer hebel waa qabiil aad u yar xaqaygii buu haystaa way tir xaqaygii هذا حقها بدع وحقيده يضا ياس حقاس يضا يا حق السيي markay leedahay ra'iisul wasaaraha kursiga ugu fadhiya xaqii uu haysta ra'iisul wasaaruhu waa shaqaale mushaharka uu isagu qaatana wuxuu ku dhisay waxa uu ku bixiyaa arday iska bixin kari weyday fiigii iskuulka jaamacadda ardayda Baydhabo ra'iisul wasaaruhu 100,000 oo arday oo dugsi sare ka baxay oo reer Baydhabo ama marxaatibaad ka wadatiin in uu mushaharkiisa bil walba uu uga gooyo inay iskaga bixiyaan jaamacadda magaciisa ayaa ku qoran jaamacadda ku taala Baydhabo Khayra University of Baydhabo waadna aragteen taas cidina looga sheekayn maayo
maanta marka dadku inay yiraahdaan khayraad dad lacag wuxuu ku siinayaa si ay u amaanaan si ay u barabagad war anaga ilaahay baana diray qof kasta oo daacada qalbigiisa nadiif yahay wanaag doonaya ka daalay dhibaato 30 sano ku soo jirtay damiirkiisana uu nool yahay lacag kuma iibsado waxyaabaha noocaas ilaahay baana ka magan galay in aan dawladeeda ugu shaqeeyo ama aan u amaano lacag ay siiso darteeda taada kale waxaad ku ogaanaysaan dad yowgan le maalina lacag baa la bixiyaa maalin loo bixi 24 saac lacagta hadalay anaga lacag baan hadalhaynaa 24 saac dadkan nabad iyo nololdiidka ee lacagta hadalhaya ogaada mar walba waxa ay ku soo celceliyaan oo ay yiraahdaan lacag baa la bixiyaa teeda kale waxaad ku arkaysaa waa switch shalay toole iyagoo ammaanayay dawladdiiba haddana waxaad arkaysaa iyagoo ka soo horjeeda wax wanaagsan bay dawladdu sameynaysaa haddana wixii xumaaba loo leexanaya sababtoo ah waxa weeyaan aniga lacag ma siin maxaa iga galay meeshii shilinku iigu jiro ayaan maraya laakiin aniga ilaa maanta